kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baa khiyarta hawada naga daawanaysa ay ku soo dhawaada warbixin aynu kaga hadlayno isla markaasina sida ay uga faa'iideysan lahaayeen biyaha roobka maadaama aynu ku jirno xilli roobaad sanadka inaga roob badan bay noo daa maadaama waliba marka la eego magaalada laftarkeega biyuhu way iska yar yihiin haddana roobka badan ay noo daaya haddaynu u samaysano mijarooro aynu mijaroorka roobka caawinoo daay aynu ama taangi ama berkad yaroo gurigu leeyahay ama foostooyinna ha u yaraadaan aynu ka dhaansanno waa waxtarun weeyaan oo caawa oo roob badan inoo daay oon aroornimadkii laska soo toosay adigoo jabcad biyaana aan ka dhaansanin roobkiina kuwada dhaafay taniyo waa yar dhibaato kowdhe intaasaa ugu yaroo guryaha magaalada dhexdeeda lagu samayn karayaa oo dadka diir yaroo kale lehi hadday samaystaan berkadaha yaroo kale ay gurigooda ku dhex beeri karayaan ay ku manfaacsan karayaan biyo badan baana inoo xaroon karaya miyadoo kale haddaynu dhaamo fara badan iyo samayno oo la kordhiyo dhaamamka la samaynayo iyo biyo xidheena iyo waxaasi waa waxyaabahaynu beeraha waddanka ku horumarin karayno weeyaanoo aad inoo anfacaya xitaa xoolaheeni inoo cunayaan dhirtaa waxaynu beernay xoolihii inoo caawinayso dhir fara badan iyo khudrad aynu kusoo saari karayno marka inaynu biyo xidheenno fiican samaysanoo la helo waa waxyaabaha loo baahan yahay dadkuna shacab ahaan inay biyaha roobkay noo da'aya iskooga ay wixii qof waliba uu qabsan karayo hadduu miyi joogo uu iskiisa berkad u samaysan karayo haddii uu magaalo joogo uu iskiisa roobka caawa da'ay uu xun kala hadhi karayo inaynu manaafacaadsanaa waxa loo baahanyay waana nimcadii ilaahayo ilaahay haynoo shubo ilaahayna haynoo kordhiyo waanay ku mahadnaqaynaa alxamdulilah rabbil caalamiin waxaa looga faa'iidaysanayaa ee ugu wanaagsan waxa weeyaan waa in horta weel loo samaystaa haddii aanad weel u samaysanin biyaha soconayeen iyo raxmadda soconaysa ilaahayna siiyey kama faa'iideysan karayno marka waa inaynu weel u samaysanaa waa inaynu tawaangi u samaysanaa cidii awoodi karta waa inaynu u samaysanaa maxaa dhahay barkado aynu sidii barkado ay magarasa aynu maxaa dhahdaa ku kaydsanno waxa kaloo aynu u samaysan karnaa markaynu biyaha kaydsanno waxyaabo badan baynu kaga faa'iideysanaa inaynu biyihii magaranaysaa caawa da'ay oo maxaa dhahdaa magaranaysaa inoo da'ay aroortana ka biyo la'aanaa waxa weeye tamaadaray sheegaysaa laakiin waxa weeye haddii aynu isku tashanno oo dadku caqliga iyo muruqa isticmaalaan mi iyo magaalaba labadaba waynu kaga faa'iideysan karnaa raxmadda ilaahayna siiya ina dhaafaysa ee badda gelaysa dadka tusaale ahaan dadka beerahoo kalena waxaa looga baahan yahay inta ay fadhiga ka kacaan oo ay magaranaysaa biyaha ilaahayna siiyey ay ka faa'iidaystaan oo ay beeraha u qabtaan oo ay iska daayaan garaabada iyo magaranaysaa qaadka la cunayo ummadina waxay horumar ku gaadhaa amba ay magaranaysaa ay ku wanaagsanaataa in ay ka faa'iidaysato raxmadda ilaahay siiyey markay raxmadda ilaahay siiyey ay ka faa'iidaysato ayay ummaddu horumar gaadhaa waxaa la odhan jiray xagla laaban xoolo kuma yimaadaan marka ummadda waxaan u sheegaynaa oon aad iyo aad ugu sheegaynaa waxay adduunyadu ku faalantaa wax soo saar wax soo saarkuna wax kala maaha waxa raxmadda ilaahayna siiyey oo aynu qabsanno aynu beeraheennaa biyuhu yaacayaan aynu kaga faa'iidaysanno weeyaan badan baynu ka faa'iidaysan karnaa biyaha oo nimcooyinka ilaahayna siiyey iminka waxaa jirta markaan taariikhda ku noqono sideed kuna sare kahor waxaa jirtay magaalo la odhan jiray baabi oo iminka dalka ciraaq ka tirsan magaaladaas waxay ku taallay dhul saxaraa dhulkaa saxaaraha waxay markaa dhanka koonfureed ka xigtay magaalada baqdaad ee caasimadda dalka ciraaq magaaladaas waxaa mari jiray keliya webiga loo yaqaano furad nimco kale iyo markaa wax kaloo jiray ay lahaayeen may jirin keliya magaaladaas waxaa bedelay dadkii deganaa oo waxay ka faa'iidaysteen webigii marayey magaaladaas waxay samaysteen dhaamis iyo markaa biyo xidheeno waxay soo leexiyeen biyihii webiga marayey waxay soo leexiyeen xalkii magaalada waxay ka samaysteen beero iyo dee markaa dhaamis waaweyn markaa taas waa saa looga faa'iidaysan karo biyaha maadaama inaga ilaahayna siiyey nimcada roobka dalkaa markaa wuxuu caan ku ah weliba roobmuuday jir keliya waxa mari jiray webigaa furaad markaa waxaan odhan lahaa sida ugu fudud aynu ka faa'iidaysan karnaa biyaha waxaa weeye inaynu dadka inta dhul beereedka leh ay dhaamis samaystaan oo biyaha ay noo qabatimaan oo ka faa'iidaysan xilligaanu roobku jirin sidoo kale xaafidaynu ay samaystaan biyo qabatimo sida inay derkada samaystaan iyo meel biyo lagu shubo sidoo kale weelkooda ay u dhigtaan oo biyaha ay ka faa'iidaystaan xilligaa uu roobku daayo say u faa'iidaystaan say markaa uga faa'iidaystaan xilligu roobku joogsaday inuu galno xilliga abaaraha biyaha roobka looga faa'iidaysan lahaa
ee dhaamama loo xidhi lahaa dadka ee baraagin loo qodi lahaa markaa dawladdu dadka ha caawiso oo dhaamam ha u qodo oo ha samayso maxaan ku dhahay baraagaa ha u samayso oo maxaan ku dhahay dadkeeda dan yartaa hoos u eegto tukulaado waxa weeye waqti roobaadka ugu horeysa waqti roobaad baa lagu jiraa in laga faa'iideystaa ayaa qurux badan waxa weeye biyaha imika durdurayo kale ee dooxyada galayo kale waa in laga faa'iideysto waxa weeye biyo xiran la sameeyo oo sida beeriyo kale lagu faa'iideysto waxa weeye bilaadanku wuxuu ku noolaadaa waxa weeyaan oo waxa dalkiisa ka soo baxaya waa Mustafa Axmed Samakaab telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Hargeysa.